haddii aad tahay arday ku nool Soomaaliya raban inuu galo imtixaanka caalamiga kuwaas oo kala toobalan IELTS exam wadamada oo ku gali karo dhamaantiin soo dhawaada videogan waxa ku sharxi doonaa mowduuca saxaaba magacayga waa Canab Cabdirasaaq inta ku xiran dhamaan aaladaha ka isticmaal social media waa mahadsantiin jazakallahu khair si wanaagsan noola socotiin caawan videogan waxa ku sharxi doonaa mowduucaas taas oo saacidi doonto arday badan oo Soomaaliyeed kaliya cawada ardayda kaligood ma ku xusna ama ma ku saabsano sidoo kale dadka rabaan shaqooyinka ama lagu xujeeyo ama rabaan inay codsadaan shaqooyinka internationalka ama shaqooyinka caalamiga ah oo wadamada rabaan inay ka dalbadaan wadamo kala duwan sida immigrationsko kale organizationado kale waxyaabahaas in waa la isku xujeeyaa shahaadooyinkan caalamiga ah haddii aad ku nooshahay wadanka waxa ku access ama aad ku gali kartaa wadamada kuugu dhow hore waxa soo sheegay inuu ku yaalin Soomaaliya ama xarun ay ku laheen TOEFL and IELTS imtixaanada caalamiga oo dhan kulhan xarun laakiin dunida daafooyada waxay ku leeyihiin xarumo kuwaas oo laga qaadayo imtixaanaadka haddii aad ku nooshahay dalkani meesha kuugu soo dhaw ku gali karto wadamada adreeska nahay sida Ethiopia ama Kenya waxa had soo wareystay walaalo kuwaas oo badankood ku galeen dalka Kenya wali ma arkin dad ku galay Ethiopia laakiin way jiraan dad badan oo ku galaan Ethiopia waxyaabo badan oo ka saacidi doona walaalahaas ku galeen Kenya waxa ka helay information aad iyo aad u fara badan maxay la aad iyo aad ka gudbanahay qaabka imtixaanka u galay iyo qaabka ay u galayeen laakiin general waaye oo badanka waa laga sameeyahay qaabka imtixaanka loo galay wax walba laakiin waxa rabay in ogaado qof in Soomaaliya ka soo baxay si toos u imaaday Kenya imtixaankan ku galay haddii aad tahay qof shaqo iyo maxaa lahaa ama immigration ama waxyaabo lagu xujeeyo kale oo warna wadanka uu shaqeynaayo ama shaqooyin rabo inuu ku apply gareeyo waxa ku sahlan ama ku fudud Kenya iyo Ethiopia labaas wada mid ka rabtid even waxa laga yaabaa inuu gali karo Kampala laakiin ma kahi xog inuu gali karo Kampala marka dhamaantiin soo dhawaada waan rajaynaa in xogtaan ay anfici doonto waxyaabaha ugu muhiimsan aan rabnaa hadii inaan ku ogaano ama ardayda ku dhiirigelino inay galaan labadaas imtixaan TOEFL ama IELTS exam kuwaas oo kale imtixaanada caalamiga waxay ku xiran tahay jaamacadaada midda lagaaga xiro haddii aad tahay arday raba had inuu imaado dalka dibadiisa rabana inuu access gareeyo ama inuu wax ka sii ogaado TOEFL and IELTS exam waa kaasa waxa ku gali kartaa Kenya inta aan la gaarin koor mar walba waxay ku fiican tahay marka imtixaanadan galeysna oo gashid ujeedo maxaa yeelay shahaadooyinka xataa limit waa waqti ku xiran yihiin 2 sano kadib ama sanad kadib inuu dhacayo jeclahay hadana u baahan tahay ama expire oo noqonayo in imtixaanka la gashid marka sameeynaysa ama marka galeysid waxa u baahan tahay inaad ogaatid maxaa u baahan tahay hadafka ogoloosid maxaa waay ina ujeedkaaga ogaatid xataa ujeedooyinka marka imtixaanka la galay way kala duwan yihiin marka ardayaan ogoleysid as academiga u galay marka dadka shaqooyinka kala waxay soo inuu ka apply gareeyaan waxay ku apply gareeyaan waxay u galayaan general ay u galayaan qaabkaas imtixaanka xataa u kala duwan yahay hadafkiisa ka hor inta aan la gaarin lacala xataa arday ama jaamacad soo dhameeyay ama rababo inuu bilaabo master ama inuu bilaabo robaaj imaadane dalka dibadiisa waxa qasab kugu ah inaad shahaadooyinkaas haysatid haddii aad ku sii fikiraysid ani talahaan waxa kugu darsan lahaa inaad hadda bilaawdid inaad diyaarisid ama naftaada preparation badan ku sameysid qaabka u sameyn lahayd ama imtixaanaas aad ka gudbi lahayd TOEFL kan IELTS examka waxaana jira dad badan oo sharxaan YouTubers kala duwan horna waa idinku soo sheegay waxa kale oo jiraan website aad ku sameyn kartiin practice insha Allah website ma soo wadaagi doona oo free kuwaas oo ka saacidayo imtixaanada qaabka rules sharciga wax walba soo yahay adoo isdhibin oo wax sameynin haddii aad arday tahay oo marka waxyaabaas aad sameysid oo dhan oo already soo practice gareysay oo wax walba aad soo fahantay haddana rabo inuu soo aado dalka dibadiisa waxyaabo ku sahli kara waxa kamid ah inaad soo baxdid wadanka aad si toos u imaadid already marka waa diyaarsan tahay imtixaankana waa ka baxsan kartaa jaamacad oo kugu xijeyso marka waxa haystaa labadaas option waxay kala yihiin inaad diyaar garowdid marka diyaar garowdid oo maxaa la imtixaanaas waxaas in practice hore oo soo sameysay oo imtixaanaadkan waxay og tahay birna marka wadanka imaadid inaad ku kadsoomeenin oo waxaan kugu noqonayn wax weyn ama wax adag waxa awood u leedahay inaad imtixaanka gashid aan ku baastid saasna aad ku heshid maxaa lahaa shahaadadaada ama aad ku bilaawdid danti meesha aa u imaaday si toos inaad u bilaawatid taas waa option kalena waxa waaye ina dadka rabaan inay ama shaqooyin ama waxaas u ka apply gareeyaan oo hadana dalka inay dib ugu noqdaan oo kala ama meelaha ama online oo kale way kala duwan tahay hadafyada loo sameeyo qof walba hadaf gooni ah wuxuu u galaa imtixaanaadkaas dadkaasna waxa u sahlan inay aadan Kenya qarashaad ku baxayaan wax saas u badan ma ahan oo maxaa lahaa hore waa soo sheegay lacagta imtixaanka ama shahaadada certificate-kaas labadaba badankii lacag 250 ka badan karta ma ahan
ilaa inay ka yaraato. TOEFL-kani badanka waxaa lagu sheegay 190 camal intuu yahay, kanna 200 ilaa 200 iyo hadda 20 lagu soo sheegay. dadka waa soo wareystay walaaladii aan soo wareystay ugu sheegan ilaa 200 ilaa 220. TOEFL-kani 190 badankii aan ku arkay xogta markaa raadinay iyo YouTube-da kala duwan markaa daawanayay. marka dhamaantiin soo dhawaada, waxaa rajaynayaa in xogtaani anfaco. haddii aad tahay ardayni waxaa kugula talinayaa horna waa idin kugu soo sheegay, mar walba ku dadaal in maxaa la dhahaa aad fahantid habka passageska, waxyaabaha u gaarka ah, waxyaabaha looga baahan yahay TOEFL-ka, qaabka rabtid inaad access gareysid ama aad rabtid inaad u sameysid wadamada markaa u sameynaysid kaliya waxyaabaha lagu xujeyna waxaa ka mid ah inaad haystid passport ama national ID card-kaaga oo kale. haddaa intaas haysatid waa access gareyn kartaa. iyo lacagtoo kale lacagtan laba qaab u diri kartaa. hadaa rabtid hadaa kaarkaaga haystin kaar ahaan u dhiibi kartaa, ama lacala hadii dadka ugu noolyihiin oo kale ama family ama walaalo kale Kenya ama Ethiopia oo kale dadka inay bangiga ku geyn karaan oo kale. waxaana ku access gareyn kartaa ama oo ku diiwaangelinta aad ku sameyn kartaa hal maalin gudahooda. waxaa haystaa 24 saacadood. haddii aad buuxiso 24 saacadood gudahooda waa lagu aqbalaa. website-kana uu ku furan yahay, wax walbana ka isticmaal kartaa. imtixaano kale oo kusii practice gareysan kartaa. waxyaabahaas oo dhan waa xog ku saabsan dadka rabaan inay u aadaan wadamada u dhow kuwaasoo loogu xujeeyay. dhanka shaqadoo kale qofkii arday oo kale asin lagu xujeeyay asina wuu gali karaa. waxay ugu sahlan tahay hadduu rabin imtixaanka jaamacadda oo kale qarashka la kaaga bixi lahaa jaamacadda marka 3 jibaar loo kala qeybiyo kala qeyb kamid inay kaaga baxdaa laga yaabaa. haddii oo markaas Africa wax aad ku baranaysid wayba kaaga sii sahlan tahay lagu xujeeyo. jaanisa waxaa ku haystaa inaad wadankaaga Afrikada aad ku gashid. hadaa wadamadan kale imaanaysin sida Tokyo kale, Malaysia kale, meelahaas oo dhan waxaa iyakana jaanis ah u haysataa inaad imtixaan gashid. imtixaankaas hadaa ku guuleysatidne saasaa maxaa ku haysataa aad ka gudbi kartaa codsigii lagaa codsaday. waxaa ku bilaaban kartaa galaasiyada markaas hadafkaa rabtid inaad u sameysid. marka dhamaantiin soo dhawaada. video xigana waxaa rajaynaa inaan idin kula wadaago website-yada aad ku practice gareyn kartiin waliba si bilaash ah idinkoo access sameynin ama qarashaad ama lacag aad ku bixinin. marka dhamaantiin soo dhawaada. waxaan rajaynaa in xogtaan naqan doonaan xog idin anfac biidnillahi alkariim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.